اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaan bilaabaynaa dariskii toddobaad ee ku saabsiisan tataarka. waxaynu hore uga soo warannay taariikhdii tataarka qaybtii ku saabsiisnayd addawla alkhawaarzimiya iyo sidii ay u jebiyeen ee uga guulaysteen. waxaynu kaloo soo marray dawla alcabaasiya iyo sidii ay u jebiyeen. waxaan kaloo soo marray addawla alayuubiya fadla naamusa. waxaynu hore uga soo warannay dowladdii ballaadhnayd ee tataarka iyo dhibaatooyinkii ay u geysatay dowladdii islaamiga ahaa iyo siday u soo jebisay. waxaynu soo gaadhnay markaa 3 dowladood oo waaweyn oo ka mida dowladihii muslimiinta ahaa oo min jayna dacalkiisa ilaa iyo ghaza, magaalada falastiin maanta ee ghaza la isku haysto, ilaa halkaasuu tataarku soo gaadhay. intaa wuxuu jebiyey markaa 3dii dowladood ee ugu waaweynaa ee meesha ka jiray oo ah khilaafa alcabaasiya, xagga shishana ay ka sii xigto addawla alkhawaarzimiya, dhanka sokana ay ka xigto addawla alayuubiya iyo wixii ka hadhay. waxaa la soo gaadhay markaa inaan ka warramo qaybihii ugu dambeeyey dagaalada koowaad oo ku saabsan duwalkii mamaaligta la odhan jiray. mamaaligtu waa dowlad masar ka dhalatay dabeetana ballaadhatay. dowladdaasi inta badan taariikhyahanada muslimiintii wax badan kama warramaan, waana laga yaabaa sababo badan inay jirto oo ay ka mid tahay siduu doctor raghib asarjani tilmaamayo casrigoodii oo tiro badatay dowladaha yaryar ee muslimiinta ahi oo qofka taariikhyahankaa ay ku dhib badan tahay inuu cusuurtaasi si fiican uga wada warrami karo. bale wuxuu tilmaamayaa maalan raghib asarjani wuxuu leeyahay almamaalik albaxriya, mamaaligta inta badan 2 qaybood baa loo qaybiyaa. dowladdii mamaaligta la odhan jiray 270 sannadood wax ku dhadhow bay talinaysay. qaybta hore waxaa la yidhahdaa almamaalik albaxriya, waa qaybtooda labaadna waxaa la yidhahdaa almamaalik alburjiya. waxaan rajaynayaa inay 50 sultaan wax dhaafay lahaayeen marka taariikhdaasi 200 iyo intaasaa la tilmaamo. qaybtan hore ee la yidhaahda almamaalik albaxriya waxa uu leeyahay doctor raghib asarjani waxay telinayeen 144 sannadood, laakiin waxaan rajaynayaa taariikhyahanada kale inay ku tilmaamaan 130 inay tahay, 136 meelaha taasaanay u dhowdahay. 648 bay bilaabmeen. koodii ugu dambeeyey wiilkii yaraa ee xaaji shacbaan la odhan jiray 684 ayaa kursiga laga riixay. dowladda almamaalik albaxriya la yidhaahdo ee 136 sannadood talinaysay, raghib asarjani wuxuu odhanaya ilaa 29 baa soo maray madaxa, laakiin taariikhyahano kaloo badani waxay tilmaamayaan inay 27 ahaayeen. haddii shajaratu dur islaamtii maamulka bilowday haddii lagu darano iyana boqorad laga dhigana waa 28 bay noqonayaan. 29 ama 28 madaxda ah raghib asarjani wuxuu leeyahay 22 ka mid ah 12 waa la dilay, 12 waa la casilay. that means 22 nin oo madaxda ka mid ah ayaa 10 waa la dilay, 12 waa la casilay. xataa dowladdii ka dambaysay almamaalik alburjiya kama fiicnayn iyaguba, waayo waxaad odhan kartaa 9 ka mid inkastoo ay wakhti dheer taliyeen 130 sannadood ku dhadhow,
haddana 16 ka midi 9 sannadood bay xukumeen 9 sano gudaheeda ayaa 16 sultaan isbedeleen dawlad ilmamaalik maadaama salaatiinteeduna tiro badan tahay taariikhyahanadu inta badan wax badan inaanay ka sheegin bay u badan tahay mustashriqiinta iyagu maba jeclo oo dee nimankani 2 qarni ama 3 qarni waqti ku dhadhow ayay labadii quwadood ee waqtiga muslimiinta ugu dhibta badnaaba hortaagnaayeen dawladdan mamaaligta la yiraahdo maxay kaga gadisantay duwalkii aynu hore u soo maray waxyaabo badan bay kaga gadisayeen waa dawlad askareed casaakir soo ma maqashaan waa dawlad askariyeed oo xoog lagu kala qaado madaxnimada oo waxaan aan sheegayo dhameed dil iyo madaxda la iska casilaydani waa inqilaabaad bay ku wada dhaceen waa inqilaab askari marka inqilaabka ama waa la dilayay kan hore ama waa la khalcinayo xabsiga loo diray ama waa la reebay siday ku bilaabmeen waxaan jeclay intaanan ka waramin dagaaladii ugu adkaa ay la galeen tataarka waa nimankii jabiyay horta tataar goobtii koowaad ee dib looga soo celiyo waa halkii iyagu ku hakiyeen waqcatu ayni jaalut tataar dib hore uguma socon intii damba markaa la isku haystay iyo wixii dib ka dhacay nimankaasi tataarka soo jabiyay haddaan taariikhdooda dib ugu noqono waayo waqcadda ka warankeedu wuxuu ku xidhay inaynu duruufta fahamno duruufta inaynu fahmnaana waxay keensanaysaa dariskeena maanta oo dhammi inuu muqaddamo u bato dariskan maanta ka warramay oo dhammi inuu muqaddama lihada alwaqca noqdo muqaddamadani maxay ku saabsisantay dawla alayubiya horeynu u soo sheegnay 8 sannadood bay talinayeen salaaxadiin alayubi 20 sannadood ayuu isagu noolaayo maamulayay markuu geeriyooday wuxuu ka tagay dawlad aad u ballaaran oo Masar iyo Shaam iyo Xijaaz iyo Yaman iyo Liibiya qayb kamida iyo Noobiyiinta dhul aad u ballaaran dawlad islaam oo ka talinayso salaaxadiin ka tagay isla markaana uu xoreeyay Bayt al-Maqdis laakiin isaga gadaashay raggii yimi madaxnimadii baa la isku dilay waa la inqilaabay waa la kala riixday 60 sannadood bay ayuubiyiintu gudahooda istilayeen ayuubiyiinta 60 sano istilayay waxay u bateen inaanay xataa wax kasto ay soo adeegsan karaan inay soo adeegsadaan oo ayuubiyiinta qaybo kamid ah waxay soo kaxaysteen crusadeski ama dawladihii masiixiga ahaa ee muslimiinta la dagaalamayay ayay qaarkood soo taageersadeen oo iyaga iyo kristan iyo muslim wada socda ku wada duulayay dawlad yar oo kale muslima 60 ka sannadood ee dambe 10kii u dambeeyay aan wax ka tilmaamno markaa laga soo bilaabo 637kii Masar dawladeedii waxa qabsaday ninkii la oran jiray al-Malik as-Salih نجم الدين أيوب الملك الصالح نجم الدين أيوب وأي تاريخي هنادو كتريان إنه كمد يهيدا يوغي وفضل بدنا بعد صلاح الدين دولة الأيوبية وحي صامري نكن هي نمنك يسكر ريركا هايه ينا الشام يمالها كلا كترين هي فلسطين قيبا كما دي يدولكا كترين هي وحاد نحمري دقالله وحوغايه 600 iyo 41 markay taariikhdu marayso yaani 4 sano ama 5 sano meelaha markuu xukunka haystay kadib ayay ayuubiyiintii Shaam deganaa isu tageen dabeetana nasaarada ama kristanka qayb kamidana taxaaluf bay la samaysteen waxay ku heshiiyeen in lagu wada duulo Masar oo Masar la qabsado oo boqorkaas la yiraahdo Najmuddin Ayyub dawladda laga rido مقابل كذا أنا ممكن النصارى إن لصيو بيت المقدس نقاطان بيت المقدس بانو كتنازلينا لكن مصر نلقب تبيلقوه الشيء نك الله يرهضو نجم الدين أيوب وحيس كد يينو استدفاعه عيدا كيسو وطه نمن كي وعان صنام ممالكته والله يرهضو ركن الدين ببرس القائد ركن الدين ببرس البندقداري ninka la oran jiray uu hogaaminayo ayay dagaal wada galeen isagoo ninkaasi la socda maadaama ciidankiisu yaraana wuxuu isku dayay inuu adeegsado
ciidamo culimada qaarkood ay ku yidhaahdaan murtaziqa bay ahaayeen mercenaries calooshooda u shaqaysayaal qoladan calooshooda u shaqaysayaasha lagu sheegayaa waa dawla alkhawaarzimiya dawladdii xoogga badnayd ee markii horeba tataarka daandaansatay ee muddada ay tataarka isdilayeen ee beriga fog ka talinaysay dawladdaa ciidamadeedii jabay qaybo ka mid ah firdhadkii soo galay masar iyo shaam iyo meelaha kan laakiin waa niman janana ah casaakira xirfad caskareed leh xirfadoodii caskariyeed bay ku baacmushtareeyeen markaa ninkan najmudiin oo ayuubiyiintii kale reer shaam iyo ay isu soo bahaysteen nimankii kristanka ahaa ee baytulmaqdis loo ballan qaaday wuxuu dareemay in laga xoog badan yahay dabeetana wuxuu adeegsaday nimankaa murtasiqada abuu ciidankiisi ku soo darsaday 642 hijriyadu ayaa waxaa dhacay mowqaca loo yaqaano mowqacatu ghaza oo labadaa xilfi wadaag najmudiin oo murtasiqada ayuubiyiinta murtasiqadaasi khawaarzimiyiinta ana wata askartaasi calooshooda shaqshaqeysta iyo ciidankii nasaarada iyo ayuubiyiinta oo wada socdaa dagaalkaa ku kulmay dagaalkaasi alqaa'id bibrus si xooggan buu uga guulaystay xulafadiina waa la jebiyey xulafadaa jabkooda taariikhahan meeshan aan ku sheegi doono oo dhammi kuma dhaadhacayo waayo maaha inaynu ghazawaadkan ka waranno ee waa mamaaligtu say u samaysantuun inaan taariikh muujisa ka tilmaamo dagaalkaa jebintuu jebiyey waxaa la yidhaahdaa ilaa 30,000 oo askari buu ka dilay niman badan oo madaxa oo umaradii kristanka iyo kuwii muslimkaba lena gacantaa lagaga dhigay xulafadaana xoog baa loo jebiyey wuxuu u arkay najmudiin inay fursad tahay maadaama uu madax badanna qabqabtay oo ayuubiyiin iyo kristanba ka mid ah ciidankoodiina in badan uu ka laayay oo 30,000 oo askari ciidan gaadhaya uu ka takhallusay wuxuu u arkay inay fursad tahay dabeetana inuu baytulmaqdis xoreeyo oo shaam qabsado oo kuba dara buu u arkay awalatiisa duulimaad lagu ahaa wuu soo socday wuxuu xoreeyey baytulmaqdis 643 hijriyada ayuu xoreeyey maalintaas siduu u xoreeyey gacanta gaalada waxay dib ugu noqotay 1917 November 16 ciidanka ingiriisku markuu galay iyadoo waliba ay yiraahdaan sababtu ku galay waxay ahayd bay qaarkood sheegaan khiyaano macruuf oo sameeyay Mustafa Kemal Atatürk Turkiga ka talinayay dawladda Cuthmaaniya dhisi doona dagaalkii koowaad ee dunida ayaa gaal dambe caga soo galiyay ugu xigtay sidoo xoreeyay ninkaasi loo yaqaano najmudiin ayuub 643 hijriyada wuu sii waday magaalooyin dhulkan iminka haysato Israa'iil ka mid ah waa Casqalaan iyo magaalada Tabariya la yiraahdo dhulkaas buu xoreeyay isagoo meel fiican marinaya ayaa maadaama ciidamada la socda ay niman murtasiqa ahaayeen niman calooshooda oo shaqaystayaal ahaayeen umaradii ayuubiyiintan qolo ka mid ah ayaa lacag ka badan lacagtu odaygani siinayay u ballan qaaday dabeetana dagaalkii bay kaga baxeen kadibna isaga bay ka hor yimaadeen oo way la dagaalameen halkaas waqacada wixii ka dambeeyay waxa bilaabmatay waxaan aynu hadda ku soconno ee ah nimanka mamaaligta la yiraahdo sidii ay ku yimaadeen natiijadii dagaalkaasi waxay noqotay najmudiin الملك صالح نجم الدين أيوب إنه قاطع فكرة عيدا ضمبؤ مرتزقوا على شوض الشقيستاي أنا ينامك حيسنين عيدا ولاقة طاعد السقوين وهله عيدا لعكت طاعد وهنا عيدا نقرين بوارك كدبوا حب الابي هل كي خوارزميين تينو بكبدلوا نمن الله يراد مماليك شاش وحويا هذا من هم المماليك waxaynu ka warrami doonaa dawlad mamaaliki hogaaminayo tataarka jabiyay fikraday ku timina waa tatan maxaa la yiraahdaa marka mamaalikta aslu al-lugha al-arabiyya mamalik wa jam'u mamluk mamlukuna waa raqiqa ma abd wa adon
siiba addoonka isaga addoonnimo isaga lasoo qabsaday ee aan aabbihii iyo hooyadii addoommo ahaan jirin ka aabbihii iyo hooyadii iyagoo addoonnimada ku dhashay kaa qin baa la yidhaahdaa cabdigaas waa fuqahadu kan ay qinka ku tilmaamaan amaa kan isagaa la addoonsaday oo addoonsiga dagaallo lagu soo qabsaday aabbihii iyo hooyadii may ahayn laakiin taariikhda islaamiga ah ereyga af carabiga guud ma aha ee mamaalik haddaad maqasho inta badan taariikhda islaamiga waxay ku caanbaxeen niman asalkoodu addoommo ahaa oo ciidamada la qorto ciidamo marka dambe u noqda dowladda tan kuwaasaa mamaalik ereyga la yidhahda ku caanbaxay goormay bilaabmeen wakhtigan may bilaabmin ka hor bay bilaabmeen imaamu tabari raxmat ullaahi calayh wuxuu soo aroorinayaa fii taariikhi wuxuu ku soo aroorinayaa ciddii ugu horreysay ee adeegsata ciidan addoommo ah inay ahayd wakhtigii dowla alumawiya siiba nasr ibnu sayaar ninkii la odhan jiray markuu talinayey waa waaligii khuraasaan waa eeraan waqooyigeeda afghanistan waqooyigeeda ilaa taajikistan meelahaasi intaa waaligii ama govarnarkii ama barasaabkii uga talinayey dowla alumawiya oo nasr ibnu sayaar la yidhaahdo ayaa ahaa bay dhahdeen ninkii ugu horreysay mamaalik qorta oo 1,000 askari oo mamluuk u qortay dabeetana ciidan buu hub buu siiyey ciidan uu ku dagaalgalu noqday laakiin aakhirkii isaga iyo ciidankiisiiba waa la jabiyey dowla alcabaasiya wakhtigeedii siiba wakhtigii ay telinayeen labadii nin ee midna ma'muun loo odhan jiray midna muctasim loo odhan jiray oo ah 198 ilaa 227 ayay labadaa nin ee walaalaha ay telinayeen nimankaasaa waxay bilaabeen inay askar badan qortaan waayo cahdigii dowla alcabaasiya waxay bilaabeen laba qowmiyadood inay dowladnimada ka fogeeyaan nimanka carbeed iyo nimanka beersheeniska ah labadaa dowladoodba inay dowladnimada ka fogeeyaan si aan xukunka iyaga cidi ugu soo hungurayn maadaama ay labadan bulshood rabeen inay ciidannimada ka fogeeyaan waa inay keensadaan ciidamo kale oo markaa dowladdii muslimiinta ahayd ciidan u noqota waxay bilaabeen inay guutooyin askar ah oo addoomahaasi suuqa baac mushtarka laga soo iibsado inay soo ururiyaan siiba almuctasim bilaahigaasi waxay dhahdaan ciidamadiisa addoommaahi dhowr iyo 10,000 bay gaadheen bale baqdaad markay qaadi weydeen dadkiiba ay suuqyada ku cidhiidhiyeen ayuu wuxuu sameeyey magaalo caan ah oo isaga iyo ciidankiisuna ay degaan waa magaalada la yidhaahdo sura man ra'a yacni magaaladan asamraa iminka la yidhahdo ee ciraaq ku taalla ee baqdaad u dhow asalka magaaladan waxaa loo sameeyey ciidankaas in la dejiyo waa qalcaadkii iyo meeshii uu dejiyey ciidankan isna boqortooyadiisii buu rartay meeshaasuu degay waxay u noqotay markaa ciidamadiisii oo atraak ku badan qowmiyaddan turkiga la yidhaahdo oo uu sidii aad dowladnimada kaga xoraysid carabtan iyo maxaa beershiyaankan iyo dadkan laakiin nasiib darra isna muu xorayn karine 20 sannadood kadib markay ciidankii qabsadeen iyo jannanadii iyo wixii boqorradiiba waxay noqdeen lucbo gacantooda ku jira mid ay dilaan iyo mid ay casilaan bay iyana ka dhigeen aakhirkoodii oo siiba mutawakil markay dileen 247 wixii ka dambeeyey mamaaligtu wakhtigaa markaa laga soo bilaabo iyo wixii ka dambeeyey waxay noqdeen ciidan cusub oo ku soo biiray dowladihii muslimiinta ah duwal ila taabika maqashaan fulana taabika taabik ataabiktani waa ata iyo bik la isku daray labadan eray ee af turkiga ah ata waa bimacna alab bay yidhahdeen walmurabbi bikuna isaguna waxay ku tilmaamaan inuu yahay alamiir yacni waa dhasha umarada dadkii tababarayay ataabigtaasi waa nimanka taariikhda caanka ku ah ee markii dambe duwal ilatraaf xukumay ragga taqaaniin xataa dowla ayuubiya raggay ka soo bilaabatay cimaadadiin zinki iyo nimankaasi duwal ilataabik bay ahaayeen markaan soo duuduubo
ciidankan mamaaligta la yidhaahda oo intooda ugu badan waxaa laga keenay meeshan la yidhaha maa waraa'i nahr nahru jiixoon aynu hore usoo tilmaamnay waa webiga kala qaybiya dhanna turkmanistan iyo afghanistan dhanka kalena tajik iyo uzbekistan webiga dhex mara waxaa ka dambeeyay taariikhyahanadu maa waraa'a nahr ku tilmaami jireen halkaas baa laga keeni jiray cunsurkan turkiga la yidhaahdo atractani cunsurkaasi meeshay degaanka u lahaayeen waa meesha waana mantiqo dagaalku ku badnaa bay ahayd dad gaalo u badan samraqanda iyo farqaana iyo khawaarizm iyo magaalooyinka muslimiinta baa la keeni jiray waa la kala gadan jiray saalix alayuub ninkan aynu rabno ee ciidanka cusub samaystay muxuu soo kordhiyey isagu wuxuu bilaabay fikradaha hore ka gedisan oo ah inaanu nin weyn askari qoranin wuxuu bilaabay isagu inuu carruurta iibsado carruurta yaryare suuqaa lagu iibinayo inuu soo gato carruurtaa markuu soo gatana inuu u tababarto ciidamadii ama dadkii la iibin jiray waagaa ugu badnaa horta dad asalkoodu turkiya ugu badnaa inkastoo laga helayay armeniyiin kuwa ah mongolians laftooda kuwa ah iyo yurubtan indhaa buluugale qaar ahba saqaalibada nimankii la odhan jiray yurubtan bari dee intaa waa laga xoog batay muslimiintu dhulkay qabsadeen bay ka mid ahayd waa la kala gadan jiray iyagana waxaasoo dhan oo la isku daro ayaa waxay noqdeen cunsurka ugu badan ee caddaanka ah ee addoomaha dadku iminka markaad addoon maqasho nin madow bay ka fekeraan addoomuhu berigaa nin cad bay ahaan jireen aad ba u yaraa addoon madoobi tira aad u yar bay ahaayeen cunsurkaasi wuxuu bilaabay markaa boqorka kani isagu inaanu gadanin ilaa kuwa yaryare carruurta ah mooyaane siiba dad aan muslimiin ahayn laakiin maadaama tataarkii dhul badan oo muslimiina ay qabsadeen oo carruur yaryar oo tiro badan leh ay gadeen dadkaa la kala gadanaya qaarkood waxaa iskaga jiray dad muslimiin ay dhaleen oo carruur yaryar oo muslima laakiin aan af carabiya waxaana ku hadal aabayaashood iyo dadkoodiina dadkii la laayay ay ka mid yihiin ninkani wuxuu bilaabay markaa kulliyaad caskariya oo cusub inuu samaysto oo lagu tababaro ciidamadiisaa yaryar ciidamadani waa carruurta tan inta aanay sinulbuluuq gaadhin qaangaadh inta aanay noqonin kow waxay yidhaahdaan waxaa loo dhigaa af carabiga markay bartaan baa waxaa la baraa qur'aanka markay bartaan baa waxaa la baraa mabaadi' alfiqhi alislaami walaadaabi sharciya fiqiga muslimiinta iyo adabka sharciga inta ay yaryar yihiin waxaa aada loogu ilaaliyaa salaada inay si fiican u tukadaan adkaarta sharcigaa inay qaybaan ninka mu'adibka ama mucallinkee tarayn-garaynaya hadduu khata yar ku arko wuxuu isku dayaa inuu tambiihiyo ilaa xad ciqaabaadka qaarkooda la mariyo carruurtaasi waxay kortaa markaa iyagoo carruur yaryar oo muslimiina oo islaamka jecel oo aqoon badan oo fiqiyana wata oo agtooda culammada iyo cilmigu ku weyn yahay waa culamada qaar baa waxay yidhahdaan waa sababihi casrulmamaalik ay u soo baxeen culamada maanta ugu caansan dunida alafdaadka taqaanin waa cusurtii mamaaligta raggii wax bartay yaa ka mid ah imaamu nawowi ibnu taymiya ibnu lqayim ibnu jamaaca imaamu dahabi ibnu kathiir almaqrizi culamadan caanka ee taariikhdaa ku taqaanin waa casri lmamaalik casrigii nimanka ka nahda cilmiya baa faaftay baa la yidhaahdaa ibnu qudaama almaqdasi waxaasoo dhami waa casri lmamaalik raggii noolaa saalix alayuubi markuu dadkan uu diinta iyo af carabiga waxaan baro ee ay soo gaadhaan qaangaadhka ayaa waxaa bilaabata alkulliya alcaskariya markaas waxaa loo bilaabaa in la baro dagaalanka qaabka loo dagaalamo iyo askarinimo rasmiya iyo funuunta dagaalkee kala nooca ah fardafuulka gamuunka ridistiisa seefta iyo ku dagaalankeeda mahaaraadka caskariga oo dhan baa markaa loo bilaabaa 3 shay baa la baraa marka kanna qaab dagaaleedka iyo sida loo dagaalamo iyo riyaada alquwa albadaniya iyo jidhka in loo dhiso iyo in la baro adkaysiga iyo mashaaqa iyo dhibta inuu adkaysan karaan yacni waxaa lagu yaqaanaa askari ayay galaan kuliyadda caskariga ee askarinimada loo tarangareeyey markay dhammaystaan darajo 3aad baa la geeyaa haddana darajada tan waa saraakiisha meesha laga soo saaro
markay halkan soo gaadhaan waxa la baraa umuur alqiyaada leadership maamul hogaamin iyo maamul iyo khutadka askariga istaraatiijiga sida loo dejiyo mushkilaadka waaweyn askariga hadday ku qabsadaan iyo sida loo xalilo iyo umuurta adag oo dhan sida loola dhaqmo yaani marka kan waxa laga dhigaa qaada inay noqdaan hogaamiyayaal janano iyo wixii u dhadhow inay soo baxaan asal marka waxa uu noqotay mamaaligtan aynu ka warrami doonaa waa niman min caruurnimadoodii ilaa iyo janano iyo umaro intay ka gaadhayeen tadriib ku filan la siiyey hadduu yahay mid diineed iyo hadduu yahay mid military iyo hadduu yahay mid maamul intaba waa rag soo qaatay xadkaa markay soo gaadhaan waxaa bilaabma nidaamu rutubkooda sida loo dallacsiinayo qaar فرق عسكرية معمولة وده حدقله لبعله صدحله كان وحيا يرير نقضة قار كرلو قاضه إلى حد لجارسية محي رتبة أمير كأي جاري كران أمير قوانين منطقة دن حكومة أمام دن حكومة وضد معمولهان معمول هيا دقالهان إقطاعيين ودول دن لصيو mamaaligtan waxa kaloo loola dhaqmay islaamku ma yaqaano waxa loo yaqaano tabaniga ilma ana dhalin inaad tiraahdo ana dhalay ma yaqaano laakiin wuxuu yaqaanaa in qofka la kori karo isagoo magaciisa aan laga bedelin iyo wixiisa boqoradani siiba najmudiin ayub wuxuu la dhaqmay sidii caruurtiisa oo kale oo markuu raggan kuliyadka ka soo saaray xero gaar uu dajiyay xeradu dajiyay buu la degay meel la yiraahdo jasiiratu rawda oo qaahira ku taala ayuu dajiyay wabiga niilka dhexdiisa jasiirad yar ku taala halkaas uu qalcad uga dhisay isna gurigiisii boqortooyada halkuu soo raray sida caruurtiisa oo kale uu la dhaqmay xad bay yiraahdaan uu cunada la cuni jiray meeshay seexdaan jeegarayn jiray wax walba way iyana si dhabay u jeclaadeen oo nimankan suuqina khaasa iyagoo yar yar laga keenay suuqa dadka lagu iibiyaa laga keenay iyagoo yar yar haddana waxa laga dhigay umaro iyo dad xawaashidii boqorka ka tirsan iyana markaas si fiican bay ula dhaqmeen boqortooyada aad bay u soo dhaweysay ciidankan mamaaligta la yiraahdo marka hore saas ku samaysmay ninka la yiraahdo najmudiin laba nin ayuu ciidamadiisa hogaamiyaal uga dhigay nin la odhan jiray farisudiin aqtaay iyo nin la yiraahdo ruknudiin bibris labada nin ayuu madax uga dhigtay halkan markay marayso intaanan wali gaadhin meeshii aan u socday muqaddamadan waxoogaa ku daro Louis التاسع boqorkii la odhan jiray waxa jiray Yurub boqoradeeda waqti ka mid ah ayaa boobabku aad u hungureeyeen dabeetana iyaga iyo boobabkooda wada socda waxa la go'aansaday in muslimiinta lagu duulo xamlaad kala dambeeyay حملة صليبية الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة السادسة السابعة حملات تاريخ دا عام كوا كروسيدرز كان نمان كان لا يراهدا ويان دغالada ay soo qaadeen dagaalada ay soo qaadayay boqorada Yurub Richard kii la oran jiray qalbulasad ee Ingiriiska ka talin jiray Philip Augustus kii Faransiiska ka taliyay maxaa la yiraahdaa Frederick Thanigi Germany haysan jiray Bahamayo oo Qobrus iyo Sicily ka talin jiray dagaalkii shanaad ee ay soo qaadaan reer Yurub iyo Crusadeska waxa hogaaminayay boqorkii la oran jiray Louis ka sagaalaad ee Faransiiska Louis ka sagaalaad ee Faransiisku wuxuu isku dayay inuu Tatarka heshiis la galo in muslimiinta gamta loo joogsado laakiin way inagii hore u soo sheegnay boqorka Tatarku inaanu cidnaba agtiisa inuu ku arkay inaanu ogolayn dabeetana waxa uu ka xanaaqay boqor yar oo reer Yurub oo waraaq soo dirayo iska dhigaya qof macna lagu ka xanaaqay saadaradeed wuu diiday fikradii sulxiga ahayd hase yeeshee boqorkii Masar haystay ee Najmudiin xanuunka tiibayda la yiraahdo ku dhacay wuu xanuunsaday Louis wuxuu maqlay intan kale ayuubiyintuna naf badan ma ilahayn ninkii ugu xooga badnaana inuu xanuunsanayo Tatarkiina inay marayaan Baghdad qabsadeen iyo waxaasi oo dhan ka soo tallaabeen dabeetana wuxuu isiri wallahi adna wad ka yara gaarsiin karaysaa Masar iyo intan iska sii qabso حملات بو soo qaaday ilaa 700 oo doonyood buu soo kaxaystay ciidan xoogan oo qaarkood ay ku sheegaan 100 kun oo askari ciidan gaadhay uu soo kaxaystay wuxuu ku tala galay inuu Masar gunta ka rojiyo
wuxuu yimi meesha la yidhaahdo dimyat waa magaaladii ugu caansanayd markaa masaarida ee dekedda u ahayd ee baxrul abyadka ama mediterranean seaga kusoo jeeday dimyat ciidankan inta leeg iyo waxaani marun bay soo galeen waxoogaagii askartii iyo ciidankii joogay waaba ka baqeen waa uga yaaceen magaaladii buu iska qabsaday halkii buu degay waa xamladii toddobaad ee saliibiyiinta markaa alxamla asaabica weeyaan markay qabsadeen meesha tan ayuu boqorkii masar ka telinayay markaa najmuddiin ayaa wuxuu go'aansaday inuu dagaalamo weliba inaan qaahiro loogu iman inuu ka hor tago laakiin dadka si uu u dagaalgeliyo wuxuu go'aansaday isagoo buka oo jiifa oo sariirta saaran in la qaado frontka la geeyo isagana ciidamadiisii wuxuu amray inay baxaan meel dhexe madiinadan almansuur la yidhahdo almansuura halkaas buu ciidankiisii keeyey oo kollayba wuxuu garanayay webiga niil inuu soo raaci doono marka inaan qaahiro la isugu imana dhexda inuu dagaalku ka dhaco wuxuu amray in la qaado oo meeshaa la geeyo saraakiishiisii ciidanka watay waa 647 baan rajaynayaa inay tahay marka dimyaad la qabsaday safar 20keedii labadiisii sarkaal ee mamluuga ahaa ayaa ciidamadana wata farsudiin aqtaay nin la yidhaahdo iyo bebris ruknadiin albunduqdaariy nin la yidhaahdo labadaasaa nin wata waa laba nin oo janana ah oo dagaalyahano khatar ah iyadoo khitadii caskariga la dhigayo oo uu rabo inuu isdifaaco ayaa waxaa dhacday tii allah timi shacbaan 15keedii ayaaba geeridu u timi boqorkii waddanka maamulayay waa nin boqoroo saalixa buu habaa lagu tilmaamaa isagu waa ka ibnu taqari berdi ayaa wuxuu leeyahay low lam yakun min masaaxin الsulطaan saalix najmuddiin ayub ila tajalludah cinda muqaabalati اlcaduwi bilmansuura wahuwa bitilka اlamraa المزمنة وموتها على الجهاد والذب عن المسلمين لكفاه ذلك ما كان أسبره وأغزر مروءته عليه إن كان أتكيسيسي يدقال وشوقيسي ومسلمين تسكد يينو دقال قليو يصبر بدنديسي أيا كفلا بط الماما يا إلهي باوقنا كفلا تيين كلاه نين كان يوحى نين صالحة سيد تاريخي هندو كت الماما musiibadii mar qura waxaa dhacday musiibada dadkii muslimiinta oo ah magaaladii horena in laga qabsaday dagaalkiina inuu mukadadhow yahay geesh xooggan oo boqortooyo wadataana inuu soo socdo boqorkii muslimiinta u talinayay dagaalka soo geliyayna inuu dhintay weliba nasiib darrada joogtay kale markaasi say dadku u arkayaanna waxa weeyaan ciddii dhaxli lahayd ee boqortooyada qabsan lahaydna lama hayo boqorku markaa wuxuu qabaa gabadh shajaratu dur la yidhaahdo gabadha tani iyana waa mamluukad kale waa turkiyadna dadka badh baa yidhahaa dadka badhna armiiniyad bay ahaayeen baa la yidhahaa waa gabadh uu suuqa ka soo iibsaday kadibna uu xoreeyey kadibna uu guursaday inan bay u dhashay inankiina wuu dhintay gabadhaa shajaratu dur oo mamluukadiyana ah ayuu qabaa la socota laakiin waxay ku sheegaan gabadha tani gabadh aada u caqli badan bay ahayd bay yidhaahdaan waa iron womankii soo maray taariikhaha muslimiintay ka mid tahay gabadha tani waxay go'aansatay inaanay geerida boqorka sheegin ay qariso oo waxay tidhi dhakhaatiirtiibaa waxay u diiday in cidi u soo gasho amarkaasay bixisay dhakhaatiirtiisiibaa waxay amartay bay tidhi inaan cidi u soo gelin wiil uu dhalay ninka kani oo aanay isku fiicnaan jirin aabbihii aanay iskuba fiicnayn oo tuuraan shaah la yidhaahdo oo ka taliya magaalo yaroo xisnu kayfa la yidhaahdo xisnu kayfa waa magaalo turkiga koonfurta bariya turkiga ku taalla waa webigan dajal labaa mara ilaa hadda waa magaalo jirta
xisnu kiifa meeshaa la yidhaahdo ayuu ninkani boqor yar ka ahayo ka talinayey kaasay farriin u dirtay ay leedahay aabbahaa dhimay kursigii boqortooyaduna wuu bannaan yahay xaalad khatarana waa lagu jiraa dhaqso u kaalayo na soo gaadh waxay kaloo u yeedhay labadii janan ee ciidanka hoggaaminayey waxay ku tidhi war boqorkii dhimay dadkase in loo sheego diyaar uma yihi ninkaasaanu farriin diroo imanaya dadka hala dagaalgeliyo dagaalka si fiican u maamula labadan jananna waxay qaateen bal wax waliba horta ha dhacaan inay dagaalka galaan oo aan dadku jabin sidii baa lagu heshiiyey waxaa dhacday waqacadda taariikhda muslimiinta caanka ku ah ee la yidhaahdo mawqicati almansuura magaalada mansuura la yidhahdo ee masar ku taalla ayay ka dhacday 4 dilqacda 647 macraka xooggan baa dhex martay nimankii nasaarada ahaa iyo muslimiintii laakiin waxay ku guulaysteen bixawli illaahi wa quwatih inay jebiyaan ciidankii uu watay luwiis ataasic khaarij almansuura waa la jebiyey waxoogaa ciidamo boqorku nin ka soo horreeyey oo ay taarikhyahanada qaarkood yidhaahdaan guushuu rabay inuu keligii qaato luwiiska uu ka soo degdegay wax kasta ha noqoto tafaasiisha kama warramayo waa la jebiyey haddana 10 maalmood kadib bay haddana hujuum kale ku qaadeen luwiis hujuumkii kale wuu iska dhiciyey wuu soo celiyey halkaa markay marayso ayaa waxaa yimi tawraan shaah xukumkii baa loo caleemo saaray dabeetana dadkii muslimiintana waxoogaa nasri horena waa heleen boqorkiina waa yimi waa ku farxeen dagaal cusub baa la takhdiidiyey waa dagaalada ugu waaweynaa ee muslimiintu galaan baa lagu tilmaamaa mid ka mid ah 2 bilood kadib madiina farskuur la yidhaahdo oo iyana masar ku taalla berigaa hore tuulo yar bay ahaan jirtay oo shaarix shaam yaa la yidhahdo mise shaarix saam magacaynkaasi ay lahayd meeshaas ayaa dagaalkii kale ka dhacay dagaalkaa nimankii masiixiyiinta ahaa guntaa laga jaray ilaa iyo boqorkii faransiiska waa la qabto boqorka laftiisaa gacanta lagu dhigay kadibna shuruud adag ayuu ku xidhay boqorka wuxuu yidhi waan ku sii daynaya boqorkii waa la soo qabtay ra-iisul wasaarihii ama wasiirkii ugu weynaa gurigiisa fakhrudiin ibraahim baa lagu xidhay kadibna heshiis baa lala galay heshiisku qodobo adag baa ku jira waxaa la yidhi 800 kun oo diinaar oo dahaba ayaad bixinaysaa 800 kun oo diinaar ee dahabka ah nusna haddaad kaash u dhigaysaa nusna wakti soo socdaad bixinaysaa waxaa kaloo intaa la socda wax allaaliya wixii aa maxaabiis hore u qabsateen muslimiina dufcada hore aa lacagta bixinaysaan baa ku soo daraysaana waa la soo daynaya waxa intaa kaloo la socda wax allaaliya wixii aan maxaabiis kaa qabanayna waa haynaynaa ilaa iyo dufcada dambe lacagta qaybta dambe installmentka dambe ilaa wakhtigaa ka bixinaysaan maxaabiistiinana waa la haynaya waxaa kaloo heshiiska ka mid ah 10 sannadoodoo soo socdana inaan wax dagaala la isku qaadin intii baa la aqbalay laakiin waa adduun aada u tiro badan 800 kun oo diinaar waxay u dhigmaan 3400 oo kiilo iyo dahaba yacni 1.4 tan waxay u dhigmaan wax ku dhodhow 3.4 tan waa 3 tan iyo badh wax ku dhodhow waxaa laga rabaa inay naqad hadda u bixiyaan 1.4 tan hal tan iyo badh wax ku dhodhow oo dahaba oo naqada inay imika dhiibaan dee boqorkii baa xidhan kristankii waa isu tagtageen intii waa la soo ururiyey waa la keenay luwiis ataasic waa la sii daayey magaaladan caka la yidhaahdo oo imaarad masiixiyiina ayuu dib ugu noqday halkaa markay marayso tawraan ninkii la odhan jiray tawraan shaah marka kan xoog buu isbidaysnaa boqortooyadii buu qabsaday taarikhyahanada qaar waxay dhahdaan nin dabeecad xun buu ahaa
siyaasadana kuma fiicnayn lafteeda guushii uu boqorkii faransiiska ka guulaystay ee boqortooyadii uu qabsaday ayuu dadkii la socday umuu aaba yeelin dadkii uu meesha ugu yimi kow islaantii boqoradda ahaa ee ku sintay meesha ee waxaas oo wanaaga u gashay wuxuu yidhi lacagtii aabbahay baad qarisay imikadaa waa inaad soo saartaa hantidii aabbahay haddii kale waa kaa takhallusaya aad buu ugu hanjabay baa la yidhi nimankii guulahan waaweyn geystay ee casaakirta ahaa ee mamaaligta ahaana wuu iska ilduufiyey ama mas-uuliyaadkoodii buu wax ka qaadqaaday waxoogaa ciidana uu kala yimi xaggaase uu watay ayuu rutabkii sare iyo meelihii sare ku taxday waxaa bilaabmay in la kala shakiyo markaa nimankii mamaaligta ahaa way ka shakiyeen ninka kan iyo dhaqankuu wado islaanta lafteediina way shakiday dabeetana waaba la shiray waar maxaynu yeellaa waxaaba la go'aamiyey waar isaga laftiisa aan diloo ka takhallusin hayna dhaafee waxaa caana taariikh almamaalik masaladan baynu sharxi doonaa waa inagii soo tilmaamnay markaynu duuduub ahaan sheegaynay 10 ka midana in la dilay boqorradii mamaaligta saalixiyada weliba qura 12 ka midana in la inqilaabay nimankan agtooda dilku wuu ku fududa sababtu waxay doontaa ha noqoto waa niman askarinimo ku soo koray dil iyo waxaan lagu traingareeyey waa dhan tarbiyada caskarigu waa tarbiya jaafa waa niman dilku wax badan la sii ahayn waa niman askarigu wuxuu yaqaanaa umuurta in la xasmiyo waa baasha hal la kala gooye ma diblomacy badan iyo siyaasad badan oo inta badan dadka lagu sii wadwado kuma fiicna waa niman haddana u arkay waxay dhahdaan mamaaligta taariikhdooda waxay caan ku noqdeen alqatlu bishaki aw binnawaaya mar hadduu cadow ninku yaro noqdo aad ka shakidana inaad ka takhallustaa inay ku habboon tahay waana niman dee min dhallinyaronimada carruurnimadoodiiba askarinimadan lagu bilaabay markaa ninku hadduu isagoo dhallinyaro askarinimada galo qaabkan oo ku weynaado caqliya caskaraba uu yeeshaa inta badan oo ah inuu wax walba xooggaas uu ku taliyo sanad fiqiya ama sharciya ma jiro sheegaya boqorka manaasib kaa qaaday ama kaasoo yaro horjeestay ama caynkan in lagu dila ma jiro laakiin waxay u arkeen inay ninkan ka takhallusaan go-aankaasay qaateen dabeetana ninkan odayga ah waa dileen waa laga takhallusay 7 maalmoodba kadib maalintii uu ka yimi xusnu kiifa shawgeeridunbaa buu soo socday tala uma soconin 7 casho kadib isagana waxaa lagu daray fii acdaadi almafquudiin waa la dilay weliba dilkiisu dil aad u adag buu ahaa waxay dhahdaan wuxuu dhintay jariixan hariiqan xariiqan bay dhahdaan aw maxruuqan waxay sheegaan in la dilay nabarka warankay ku dhufteen wuu dhaawacmay markuu dhaawacmay buu ka cararay markaasuu minaarad fuulay minaaraddii bay dab ku shideen markaasuu ku gubtay bay yidhaahdeen wuu ka booday webiga niil buu isku tuuray markaasuu ku dhintay deeta waxay yidhaahdaan jariixan isagoo ah dhaawaca oo gubtay oo haftay buu dhintay bay yidhaahdaan kadibna meeshii baa loo tashaday maxaa la samaynayaa marka halkan waxaa ka bilaabantay war cusub labadii kooxood ee shajaratu dir iyo nimankii askarta ahaa way iswaafaqeen laakiin meeshii firaaq siyaasiya yimi maxaa la samaynaya waxay bilaabeen in dowlad cusub la dhiso oo weliba dowladdaasi ay islaantu madaxu noqoto waa fikrad aad u jadiida
halkan dawlatul mamaalik baan markaa ka bilaabaynaa mamaaligtan taariikhda intaynu naqaanee hore dawlado badan baa adeegsaday oo طولونيين nimankii la odhan jiray oo dawla al-khashiidiyya oo dawla al-faatimiyya oo dawladka qaarkood 400 oo kun oo askari bay wateen khashiidiyiintii oo kale 400 oo kun oo askari oo mamluuka buu haystay xoraastiisa qura 8 kun ahaan jirtay laakiin dawladaha hore la yaqaan oo dhan mamaaligtu kursiga sare may hungurayn jireen kolba boqorkii meesha qabsada bay taageeri jireen hadda waxaaba isweydiiyeen war meeshan nin ayuubiyo dhaxlaya ma joogo kii yimina waatana waa laga takhalusay bal kursiga maynu inaguba isku daynaba isweydiiyeen maxaaba uun maalinba nin boqor loo saaraya maynu inaguba meesha qabsanno shajaratu dur islaantan la yiraahdaa waxay ahayd qof dumara bay yiraahdaan oo geesiyada oo dhiiran oo aqli badan bay yiraahdaan bay ahaan jirtay iyana xisaabaadkeedii waxay isugu geysatay oo waliba qiyaadada iyo xikmad badan ku leh oo waxaynu ka garan karnaaba fitradii uu ninkaasi maqnaa siday wax u sii maamushay waxaanay aragtay inay nimankan laftoodu ay taageerayaan aan warkooda soo koobo habartaasi waxay qaadatay inay iyadu boqorad noqoto nimankii mamaaligtina waxay sidaaday kolle islaanta hadhow iska riixi karaysaane bal horta caaradan hore ninkan loo qabayo waxana kaga gudubteena meesha ha qabsato iyana waa taageereen mamaalik al-bahriya oo taageersan ayaa habartii iclaansatay inay wadanka madaxweyne ka tahay waa awwal dawla islaamiya habar ay tiraahdo madax baan ka ahay ee taariikhda hore islaamiga lagu soo maqlo adduunkan muu ahayne waa islaba rogtay qayladii baa badatay dabeetana magacyo badan bay la baxday waxaa caan ahaan jirtay boqoradu inay laqab la baxaan magac bay la bixi jireen waxay la baxday malikatul muslimiin as-saalihiyya boqoradii muslimiinta ee saalihiyada ay saalihadu waa al-malika as-salih najmuddin bay u nisba sheegaysaa odageedii dhintay laakiin lama aqbalin markaasay haddana ka bedesho waxay tidhi malikatul muslimiin as-saalihiyya waalidatu sultaan khaliil amiir al-mu'miniin kii yaraay ay dhashay dhintay ayay isna magaciisa meesha ku soo dartay haddana waxay aragtay baa la yidhi inaan la aqbalaynin markaasay haddana sii kordhisay waxay la baxday laqaba malikatul muslimiin al-mustacsimiyya as-saalihiyya waalidatu sultaan khaliil amiir al-mu'miniin boqortooyadii islaamiga ahayd ee baqdaad ka jirtay waa intii aanay wali dhicin ayay u nisba sheegato mustacsimi bay sheegatay anigu amiirad yaro meel haysataan ahayd khaliifadii guud mayhi bay rabtaa inay tiraahdo laakiin warkaasi ma weeg yahay war ay aqbalayaan muslimiintii waagaasi noolay warka lama aqbalin mudaharaadda ku kacay magaaladii baa buuq badatay markaasay istiridi yaanu dabadu warka u bixino magaalooyinkii muslimiinta hore albaaba laga galay lahaan jireen albaabada ay dadka ku xidho waxay tiri bal tuulooyinka warkan iyo gaadhin hala joojiyo laakiin waqtiga kani ma ahayn waqti dumar wax xungureeyo dee barigu noolaa raggii ragga ahna waa ahaa sultaan al-ulamaa baa jooga ciisaddiin ibnu cabdisalaam ninkii la odhan jiray ee baayic al-muluk boqorada iibiyey sultaan ibnu al-ulamaa iyo rag la midaba manaabirta u baxay dabeetana islaantii xaalkii wuu sugmi waayey boqorkii ay isku magac dartay ee mustacsimkii haystay baqdaadna isna ma aqbalin habar baa madaxa ee waraaq buu soo diray waraaqda uu soo diray isaguna wuxuu ku soo qoray in kaanat الrijaalu qad cudimat cindakum faaclimuuna xataa nusayira ilaykum rajula masar buu yidhi reer masarow haddii meeshii nin rag laga waayey ii soo sheegaa nin idin soo diray buu yidhi boqorkiina waraaqdaasuu soo diray taasi waxay abuurtay markaa inaanay u suurtagal ahayn islaantan inay wax xukunto haatan waxay qaadatay haddaba fikrad kale inay magaca ka daadegto laakiin ay xagga dambe wax ka maamusho waxay istidhi nimaad xukumi karto oo magac nineed wata laakiin xiniya adigu aad u sido kaa meesha kama istidhi oo nimanka xooga badan leh wax maamulo kuwa ka weeco
waxay aqbashay markaa inay ka tanaasusho iyay uga tanaasuleysaa nimaan caa'ilad xooggan lahayn ayuubiyiinta iyo waxaa maaha nin mamaaligtan ka tirsan weliba dee mamaaligtu isku mid maaha farisidiin aqtaay iyo bibris iyo ragay xukumi karto maaha jananadii waaweynaaye meesha joogay markaa waxay damcday kuwaana inay ka weecato nimaan aad markaa caan u ahayn laakiin mamaalik albaxriya ka tirsan oo ciizadiin aybak la yidhaahdo oo asalkiisii horena jaashankiir buu ahaa jaashankiirku waa shaqo guriga qasriga laga qabto waa boqortooyada madaxda had iyo goor waxaa jira qolo cunadooda qaabilsan oo dhadhamiya si aan boqorkiiyo waxaan loo samey nimankan madaxda o dhan bahasha waa laga dhadhamiyaa iyagu ma bilaabaan mid baa jira soo dhadhamiyo haddii lagu sumoobayo isagu sumooba laakiin si aan madaxdu u sumoobin marka waagii hore shaqadan baabuu hayn jiray wuxuu ahaa jaashankiirkii madaxtooyada buu ahaan jiray ninkaasoo ayay istiri kan baad wadwadan kartaa dabeetana ciizadiin aybak bay guursatay waxaana yidhaahdaan wuxuu ka mid ahaa raggii aan ku caanbixin muranadii u dhaxeeyey jananadan iyo ciidamadan dawladda muramadoodii raggii aan qalinee iska degan waana nin turkumani loo nisbeeyo turkumanigu dhalashadiisii maaha bay qaar yidhaahdaane waa wilaa nasaba wilaa cidqiya calaa kullin 80 maalmood kadib bay iscasishay dabeetana ninkan baa madax noqday jumaada alaakhira oo 648 ayaa waxaa madax laga dhigay dowladdii masar ciizadiin aybak ciizadiin aybak waa addoon la xoreeyey laftiisu laakiin dadkii waxay u arkeen waanuun hadday qofkan dumari meesha ka tagtay bal waa lagu sii meel gaadhi karaa baa loo arkay qoladan mamaaligta ahi laftoodu umay arag nin xooggane waxayse lahaayeen isaga laftiisa waa mid ay iska weecin kartaa waktiga kan hal sano gudaheed bay masar markaa maraysaa 4 madaxweyne odaygii ayuubiga ahaa najmudiin ayaa dhintay inankiisii baa la dilay shajaratu dur baa la casilay ciizadiin aybak ba hadda kii afraada waa sanad gudihiiba 4 madaxweyne la maraya ciizadiin aybak laqab buu la baxay almuciz baycadii baa la siiyey shacabkiina waa aqbaleen isna wuxuu isku dayey inuu awraaqdiisa ratibto ciidamo cusub buu qortay mamaalik albaxri wixii ka soo raaci karayna wuu ku darsaday ciidamadiisa cusub nin dhallinyaro ah oo geesiyo cusub ayuu madax uga dhigay waa ninka la yidhaahdo markaa sayfadiin qutus ninka aynu u soconno inaynu taariikhdiisa ka waranno ee goobaha tataarka jebinaya waa wiilkan yar markaasi ee la soo dallacsiiyey ee uu ka dhigtay almuciz jananka ciidamadiisiiya uu u dhiibtay waa markii ugu horreysay taariikhda duhuuru ku yeesho ayuubiyiintii shaam joogay kumay qancin qadiyadda tan ee waxay isku dayeen masar innagaa iska lahayne waa maxay addoomahan iyo waxaan qabsaday iyo dumarkan isugu tegey aan ku duulla bay yidhaahdeen weerar bay soo qaadeen ciizadiin aybak laftiisaa ka hortegey meel zaqaaziqda halkan la yidhaahdo meel u dhow alcabaasiya macraka la yidhaahdo la galay waa jebiyey boqorkii joogay baqdaad baa soo hadlay heshiis baa laga dhex riday heshiiskaasi wuxuu noqday markaa falastiin in loogu daro ciizadiin aybak khaliifadiina inuu ictiraafo marka ciizadiin aybak hadda saxiixii boqortooyada ee muslimiinta khaliifadana wuu helay marka waa boqorkii rasmiga meesha laakiin taasi waxaanay u qurqursamin shananadii isaga ka hooseeyey dee dowladdan guulaheeda keenay siiba ninkii la odhan jiray farisidiin aqtaay oo ciidankii markaa mamaalik albaxriya ninkii ugu sarreeyaya ninkaasi boqorkan maba ictiraafin alimaam almaqrisi fi kitaabi السلوك لمعرفة دول الملوك wuxuu leeyahay xaqiraad uu xaqirayo aybik wuxuu ka gaadhsiiyey buu yidhi inuu alqaabtiisaba ugu yeedho
almuciziya melikiya waxa uguma yeedhi jirine yaa aybak buu odhan jiray buu yidhi markuu u yeedhayo maxaad u malaynaysaa jananka ciidamadaada ama wasiiru difaacaga markuu u yeedhayo hebelow ku leh aan madaxweyne iyo waxba toona raacinaynin xaqiraad weliba daraaddeed aan saaxiibtinimo ahayn aybak wuxuu go'aansaday ciizadiin aybak boqortooyadan sidii u xejin lahaa mamaaligta waxaynu nidhi takhalluska agtooda wax weyn kama ahayn wuxuu go'aamiyey markaa wixii ka soo horjeeda inuu ka takhalluso dabeetana janankii ciidamadiisa haystee farisudiin aqta'i la odhan jiray buu ka takhallusay markuu janankaasi dilay ayay habartiina shakiday waxay tiri wallahi ninka farisudiin aqta'i kow kaga siiyey inaanu xukum iyo waxba toona kuu ogolaanaynin waa shakiday almamaalik albaxriya ninkii ugu weynaa markii la dilay jannanadii ku xigay waa baxsadeen ciidankii mamaaligta ee baxriga ahi wuu kala daatay qayb ka mid oo badani waxay u carareen dawla ayuubiya dhankeedii oo weliba ka mid yahay ninkii ninkan ku xigay ee bibris la odhan jiray ilaa dimashq buu tegey mar kalea waxaa soo dhex galay boqortooyadii baqdaad ka telinaysay oo isku dayday inay heshiisiiso waxaa ku heshiisiiyey mamaaligtan baxriga ee shakiday ama yaacday inuu falastiin dejiyo ghaza inuu dejiyo isaguna boqorkii meesha haystay inuu noqdo dagaaladan laga soo maamulayo dhanka kana in laga daayo halkaa markay arrintu marayso oo ninkii uu meeshii xejistay ayuu damcay inuu sii xejisto si looba ictiraafo boqor ka mida boqorradii ayuubiyiinta ayuu xidhiidh la sameeyey waxaanu ka dalbaday inuu inantiisa siiyo waa ninkii la odhan jiray badrudiin lu'lu aynu inta badan soo marray muusil haysto oo aan nimanka fiican ka mid ahayn ee tataarka ku xidhaa buu ka mid ahaa kaasuu inantiisa dalbaday islaantii aynu xikmadda iyo caqliga badan ku sheegaynay markay arrintan maqashay caqligiiba wuu ka tego hinaasaa qaaday dabeetana waxay go'aansatay iyana inay ciizudiin aybak disho wixii dhacayaaba ha dhacaane idan boqorka ee odaygeeda ah inay ka takhallusto ficlan waa sidii wax la heshiiye iska dhigtay waa u yimi ciidan bay meel ugu qarisay tafaasiil waxba geli maaye iyana isagii bay ka takhallustay ciizudiin aybakna markaa waa la dilay meesha waxaa la soo dilay baynu idhi tawraan shaah waa la dilay shajaratu dur waa la casilay ciizudiin aybak oo ka dambeeyey waa la dilay farisudiin aqta'i waa la soo dilay imikana ciizudiin baa takhalluskiisii taagan yihi janankii ciidamadiisa sayfadiin qutus ninkii la odhan jiray ayaa meeshii dib u qabsaday inan yarow ciizudiin aybak dhalay oo cali la yidhaahdo wiil yaroon weli qaan gaadhinba buu kursigii saaray habartiina wuu soo qabtay habartii waxaa lagu xukumay in la dilo taarikhyahanadu waxay dhahdaan malaa mamaaligta wakhtigoodii waa taqura ee dilka xaq mudatay in la dilo laakiin ariiqaday u dileen baa iyana fool xumayd islaan kale oo uu qabay odaygan la dilay ciizudiin aybak oo inankan iminka boqorka laga dhigay dhashay ayaa arrinkeedii lagu wareejiyey islaana walba ka hinaasasanayd oo boqorka ka qaaday ayaa la yidhi la wareeg islaantaasaa la wareegtay iyana intay jaariyadihii u shaqaynayay hablihii u shaqaynayay isugu yeedho halka ku xidhxidhay ayay tidhi kab ku dila kabahan qaraafiicda la yidhaahdo kabaa jiray loox laga samayn jiro qabaabiib la yidhaahdo oo maas yarna dusha lagaga dhejin jiray looxa kuwaasaa loola baxay habartii shajaru durre ee cilmiga aqoonta badnayd iyo caqliga badnayd iyana kab qaraafiica lagu dilay sidii kabtaa loogu garaacayay sidii boqorkii aynu ku soo marray khaliifa alcabaasi haraatida ku dhintay say tataarku haraati ugu wadeen shajaratu durrina haraatidaasaa lagu dilay kabtaa looxaaya baa lagu dilay waa ariiqa nisyaaniya bay yidhaahdaan waa qaab aan runtii u cuntamin in qof bini aadama loo dilo laakiin saasay ku dhimatay arrinkii wuxuu marayaa markaa masar oo wiil yar uu madax ka yahay oo nuuraddiin cali la yidhaahdo gacantana uu ku hayo oo wasiy uu u yahay sayfadiin qutus nin la yidhaahdo
سيف الدين قطز waxaynu odhan karnaa marka kan waa alxaakim alasliy ee maamula dowladda waddankan ka talinaysa waa alxaakim alasliy dowladdan maamula waxa uu markaasi sameeyey inuu dejiyo dowladda tan qutus waa kuma haddaynu isweydiino ninkani xagguu ka yimi isagu taarikhyahanada muslimiintu waxay isku waafaqsan yihiin taariikhda muslimiinta raggii soo maray ragga ugu waaweyn inuu ku jiro waxay yidhahdaan magaciisa dhabta ah maxmuud ibnu mamduud baa la yidhahdaa maxmuud binu mamduud baa la yidhahdaa bay yidhaahdeen waa nin qoys boqortooyo asalkiisu ka soo jeedo ninka kan waxaa la yidhaahdaa waxaa hooyadii dhalay boqorkii baxru qaswiin ku dhintay ee moxamed alkhawaarzimi ee dowladdii khawaarzimiinta la soo jebiyey ama waxaa abtigii iyo hooyadii la walaal tahay jalaaladiin alkhawaarzimi ninkii tataarka afghanistan labada jeer ku jebiyey ee kadib la soo kaceen ee sindi ka tallaabiyeen ee xagga iyo indiya orodka ku galay kaasaa abtigiiya kaas dadkii la socday buu ahaa isagoo yaroo carruurah kaa markii la jebiyey reerkiisi iyo wixii oo dhan waa la qabtay wixii la layn karayey way laayeen midhadh carruura iyo dad noocaasa addoonnimo loo kaxaystay wiilkan yari wuxuu ka mid ahaa dagaaladii markaa ka soo dhacay qaybtaasi dadkii addoonsiga loo soo kaxaystay akhiiran suuqii nakhaasa baa la geeyey suuqa dadka lagu kala iibsado waa la iibiyey gacanba gacan bay u soo dhiibtay iib buu dimashq ku soo galay dimashq baa haddana mid kale ka iibsaday waa la waday masar buu iib ku galay masar baa haddana waxaa iibsaday ciizadiin aybik waa soo koriyey akhiiran jananka ciidanku noqday ninka kani marka hore qoys boqortooyaabuu ka dhashay kadibna wuu jabay kadibna waa la addoonsaday bariga muslimiinta laga keenay isagoo addoon ah masar baa addoonnimadii lagu keenay ilaahay qadartii kii unba haddana meesha dib u koray oo noqday markaa jananka ugu weyn ciidamada waddankan haysta qutus waxay yidhaahdaan waa nin koow guri boqortooyo ku koray abnaa'i almuluuki walumaraa walqaada waxay yidhaahdaan jaaniska inay qaadan noqdaan way ka tiro badan tahay dadka caadigaa jaaniska inay qaadan noqdaan waa culamadan leadershipka iyo managementka ka warrantaasaa sheega waayo ninka kani guriga uu ku koray hadduu iyo guri wax laga maamulo inta badan kuwaasaa noqdaa dee duwalka maanta joogaba orod sturdinkaa eeg ama wasaaradaha eeg ama caynkan eeg waa dad ku soo koray guryo maamul jaaniskoodu wuu ka badanya inay maamul qabtaan dadka kale ee caadigaa jaaniska ay wax ku maamulaan ninkani waa gurigaa uu maruu ku soo koray marka koowaad marka labaad mamaaligtii masar lagu tababaray waa nin ka mid ah oo dowraadkaa diinigaa iyo kuwa caskarigaa iyo kuwa qiyaadigaaba soo maray waa nin askarinimo rasmiyana loo tababaray waa nin markaa kalsooni nafeed leh oo sida tana askari dhaba ah wuxuu ku talagalay inuu meesha tan dejiyo hawraad baa waddanka ka bilaabmay kacdoomo ay ka mid yihiin shajaratu durri kuwii iyada la xisbiga ahaayee ka soo hadhay mamaaligtii baxsatay almamaalik albaxriya oo uu hogaaminaya nin la yidhaha sanjari alxalabi sanjari alxalabi waa mamaalik albaxriya buu ka tirsanyey waxaanu rajaynayay ciizadiin ayba gadaashay inuu isagu madax noqdo laakiin waatan wiilka yar la saaray dabeetana dhaqdhaqaaq militariya tawrad buu sameeyey qutus baa qabtay oo wuu xidhay wixii kale ee rabshado wadoo dhan wax carara iyo wax la xidhay bay noqdeen mamaalik albaxriya waxoogaa ka soo hadhay qaybo ka midi dib bay u yaaceen ayuubiyiintii nin ka mid ah oo muqiisudiin camar la yidhaahdo aynu hore u soo marray markaynu ka warramaynay dowla ayuubiya waa kark meesha la yidhaahdo meel yaroo urdun ku taalluu madax ka ahaan jiray waxay yidhaahdaan nin hunguri badan hunguri siyaasiyo weyn loo itaal yar buu haddana ahaa ayaa waxaa qaaday hunguri ah war masar ayuubiyiintii waa tan laga qaaday
nimankan isdildilaya qabsaday maad adiguba ku duushid ma labaad qabsan karaysaaye wuu soo duulay 655 waxaa ka hortagay sayfadiin qudus ciidan uu hogaaminayo wuu jabiyey mar labaad haddana rabiicul aakhar ayuu dib u soo duulay 556 marka labaadna waa la jabiyey marka labaad uu soo duulayo ma taqaanaa waa baqdaad intii la qabsaday 2 bilood kadib yani siday u fakarayeen nimankan iyo maskaxdooda u qaldantay iyadoo caasima khilaaf almuslimiin la qabsaday ayuu tataar kuma duulin ama wax iskama celin dawlad yar oo muslimiin oo meel kale ka jirto duulimaad u siiyay 2 bilood kadib baqdaad oo la haysto 2 bilood oo maratay ayuu xagga baqdaad uma jeeday wuxuu jeedaa inuu masar soo qabsado laakiin markan kale haddana dib baa loo celiyo waa la jabiyey waxa bilaabay marka wiil yar oo masar haysta iyo ninka qutus la yiraahdo ficlan taliya rasmiga ah iyo holaak oo dagaalkii soo wada oo shaam iyo dhulka inteeda badan soo qabsaday oo marka xalab maraya halka markuu marayo ayuu wuxuu arkay qutus inay arintu khatar tahay oo saddex dhibaato ay wadanka ka jiraan tataarkii oo soo socda iyo mamaalik albahriya oo thawraat wada oo gudaha casaakirtii rasmiga ee dawladdu lahayd oo inqilaabo isku daydeeya iyo ayuubiyiintii iyo shaam oo mar walba soo socda oo soo dagaal galaya wuxuu arkay meeshu inay u baahan tahay maamul rasmi ah inanka yarina inaan wax maamulaynin marka kadib bay yiraahdaan markuu rag badan la tashaday wuxuu go'aansaday wiilkan yarna ee magacuyaalkan inuu meesha ka duwo dabeetana uu meesha si rasmi ah u qabsado sayfadiin qudus 24 dilqaacda 657 ayuu markaasi masar qabsaday markuu masar qabsaday wuxuu bilaabay dagaal ah inuu u diyaar garoobo tataar sidii uu jabin lahaa aqligan yare hoose inqilaabaadkan iyo waxana sidii looga bixi lahaa inuu musaalaxa raadiyo ayuubiyiinta la heshiiyo mamaalik albahriya la heshiiyo siyaasada alkharijiya wadanka uu dhiso maxaa la yiraahdaa hatta kristankii haystay tuulooyinka tirada badan leh dagaaladan soo qaaday inuu la heshiiyo inuu isku dayo dagaalkiisa inuu ku wajaho tataar waxa dadka ka soo haray ama kristan ha ahaadaan ama muslim ha ahaadaan si kastoo loo col yahay inuu heshiis la gali doono waxaan isku dayi doonaa markaa dariska dambe inaan ka bilowno tataarkii oo duulimaadkoodii soo wada iyo qudus oo qabsaday magaalada masar iyo dagaalkii aynu jaaluud sidii ugu diyaar garoobay maanta aan halkaas kaga joojiyo assalaamu calaykum waraxmatullaah